Faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxayso dagaal beeleed maanta ka dhacay deegaano u dhexeeya degmooyinka Xiraale iyo deegaanka Inagabile oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud una ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay deegaankan maanta. Dagaalkan oo duhurnimadii maanta ka qarxay deegaankan ayaa la isku gabaldhacsaday waxaana maqrinimadii u istaagay si iskiisa. Dagaalkan oo ka dhashay deegaameen ayaa u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo ka soo kala jeedo degmooyinka Xiraale iyo sidoo kale Cabudwaaq oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud. Inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin dhimashadii dhaawaca ka dhashay dagaalkan, haddana goobaha caafimaadka degmooyinka Xiraale iyo Cabudwaaq oo aan la xiriirin ayaa xaqiijiyay jiritaanka dhimashada in ka badan 6 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah iyo dhaawaca ku dhawaad 20 qof oo la kala geeyay goobaha caafimaadka Cabudwaaq iyo Xiraale si dhaawacyadu u helaan baxnaano caafimaad. Labada maleeshiyo beeleed ayaa isku hor fadhiya caawa deegaanadii lagu dagaalamay maanta mana jiro cid isku hawshay kala dhexgalida maleeshiyaadka ku dagaalamay deegaankan. Deegaano badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa inta badan waxa ku soo noqnoqdo dagaal beeleedyada kuwaasi oo xal rasmi ah laga gaarin.